adeerkayga weeye ha in adeerkayga weeye lama fogeyn karo waa sidaan weeye waxa ku tarta adiga wadni qabiilka ka soo jaado dulmigiisa waa in maxaalina aad qirta dulmigiisa inaad qirtaa waa in aan muhiim maxalidin ka baahan yahay war midnimada ku dadaal qabyaalada iska daaya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي سبحانه وتعالى وحوليه دلو وحن إذن كأورني لب يددك أيا الذين كأوري يعني أصل كآذنه ماشي لغا أوري ماشي لغا كانت أمانتي أيو الله سبحانه وتعالى أيضا أنكو شيء ده لب كيددك أنا وحوي وآدم يا حواء آدنه هنا أقول جيدان أم قالها أهابانو أم مسلمين هذانو أم ضد قاربة كلا كسر جيدا هوضا هذانو لما أنتوا وحى لقى أوري لب يددك أيا لقى أوري كتب الله سبحانه وتعالى وحي هذي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وحن إذن كي لي ضد قبائل إيه الشعوب إيه قبيلوين كلا دوان أيا إذن كي لي هدف كامركا قبيلة اللو سميي شعوب تافر بدل اللو سميي محيطاي إلهي سبحانه وتعالى وحول اللي تعارفوا سيدي إذن كاد اسكو قرطان أو إذن كاد اسكو أقنصتان أي أرنك أن أصمين كلمة الله سبحانه وتعالى وحو الشيء يعني إلهي سبحانه وتعالى أكتي سميتك أبو الشرف تبضل حقي سنك أبو وناكسن أبو كراميسن وانك إلهي سبحانه وتعالى كعب صديق إلهي سبحانه وتعالى محول هذي إن أكرمكم عند الله أتقاكم midkiina idinku sharaf badan oo idinkugu wanaagsan ilaahay xaqiisa waa midkiina Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsaday oo ka baqay weey intaana islaamka aanan iimaan dadka xilligii jaahiliyada waxay ahaayeen dad dhaxdooda islaaya waxay ahaayeen dad iscuna waxay ahaayeen dad isbaabiya ay ahaayeen markuu islaamkii uu yimaaday qabiilooyinkii isdili jireen ay islaayi jireen ay isdhici jireen ay iskufsan jireen إلهي سبحانه وتعالى وحو كيالي ضد أيغو دان إسجعل وحين إسكو جعلادين دين تاس إسلام كيالي إسكو جعلادين إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أو فأصبحتم بنعمته إخوانا والإلهي نعمته سحسس ماذا وقت إذن كأد هيدين ضد عدو إسكوعة ضد إصلاية dad isbaabi'iya dad iscuna xilli idinka sidaas aad ahaydeen oo ilaahi subhanahu wa ta'ala nicmadiisi sababti aad ku noqoteen dad walaala aad ku noqoteen ilaahi subhanahu wa ta'ala muxuu leeyahay wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattabakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun oo waxaad xasuusnaataan xilli idinka aad ahaydeen dad arrada lagu daciifsado oo arrada lagu liida aad ahaydeen oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaarkiisa iyo nasigiisa idinku xoojiyay oo ka baqan jirteen inay dadka idin kala dafaan ay idin laayaan ay idin baabi'iyaan marka marxaladaas ayaa islaamka ka hor lagu sugnaa dadkan waxay ahaan jireen dad isbaabi'iya dad islaaya dad iscuna ma aynan ahayn dad iswalaasada ninkii xooga leh wuxuu ku tuman jiray midkii dhaifka ahaa kii ku faani jiray inuu la dheere u yahay qabyaaladu ku faani jiray wuxuu ku tumi jiray midkaasiga ka sii hooseeya faqiirka iyo miskiinka ahaa ayuu ku tumi jiray sidaas ayaa xaalad ay ahayd laakiin markuu islaamkii yimaaday dadka xaaladooda way isbedeshay dadkii iscuni jireen waxay isku bedeleen dad iswalaalaysta dad ayaga dhaxdooda isku kaalmeeya dad ayaga isku gargaara ayay wada noqdeen إلهي سبحانه وتعالى وحان نعمة ضدك مسلمين طولاني ضدك مؤمنين طوحوا كيالي ضد ولا لا أيو كيالي ومرك وحا لقدوني ضدك مسلمين طوحا لو قبها هي إني أي قد حدو ذا أي إس ولا صدا
ay iska daayaan cunsuriyada inay iska daayaan qabyaalada inay iska daayaan war wax walba waxa ka sharaf badan islaamka ka sharaf badan wax walba waxa ka sharaf badan iimaanka ayaa ka sharaf badan ilaahi subhanahu wa ta'ala muxuu leeyahay innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhwaykum war mu'miniinta waa dad walaalo ah war haddii aad iskhilaaftaan haddii aad isqabataan oo waxa loo baahan yahay dhaxdiina wanaag iyo heshiis ka shaqaysiiya oo dadkii aan la isku sii dirin colaad yaysiin fogaanin yeenan noqon dad islaayo oo isbaabiciya sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ikhwanukum fi din war hadiinan ogayn aabayaalkooda baanan garanaynin war waxaatiin waa dad walaalo ah waa waxa idinku walaalooween xagga iyo diinta ay idinku walaalooween muuminiinta waxa lagu yaqaanaa midkooda markuu dhibaato soo gaara midkii kale inuu u damqada midkii kale inuu u xanuunsada ayaa muslimiinta lagu yaqaanaa nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wuxuu leeyahay مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر يعني مؤمنين تصالحوا سيدا يسكو جعليين سيدا يسكو نحرسان سيدا يسكو تران وحد مودا كأنما هل جسد إنو يهي جسد كاسحوب كامدا هدوب بكادو أما حدو حنون صدو أو جسد كودان أقو ييري حبناها كان أقو سييري قندا يسوجد أقو سييري نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وارخفك مؤمن كأه ولكن سمؤمن كوحو يهي سيدا اسمها قريها أو كلا واسمها قريها واتقانتان قفك مركو قريها ودسايو waxaa lagu adkaa lagu dhisaa dhagaxman ayaa lagu dhisaa waxaa lagu dhisaa bulkeeti ayaa lagu dhisaa hadafka la isku dul saaraya muxuu yahay qaarkii inuu qaarkii kale inuu si adkeeyo ayaa loogu talgalay marka idan walaalaal waxaan laga baahan yahay war qof walba kelmadan la ilaaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah kelmadaasi ku dhawaaqayo kelmadaasi ku amal falayo kelmadaasi ku dhaqmaayo oo tawxiidka la yimaaday waxaad ogaataa inuu walaalkaaga muslimka inuu yahay qaaraduu doona ka soo jeedo ama qaaradda Afrika ka soo jeedo ama qaaradda Aasiya ka soo jeedo ama qaaradda Yurub ka soo jeedo qabiilku doona ka soo jeedo wadanku doona ka soo jeedo nasabku doona ka soo jeedo waxaana laga baahan walaalayaal in qofka kelmadaasi ku dhaqmayo tawxiidka ku dhaqmayo inuu yahay walaalkaaga muslimka inuu yahay oo waxa laga doonayaa dhiigiisi ayaa xaraan ka ah xoolihiisi ayaa xaraan ka ah irdigiisi ayaa xaraan ka ah nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam asigoo joogay maalintii Arafa oo meesha Arafa uu taagan ayuu khudbeeyay khudbadiisa wuxuu ku soo qatmay muslimiinta saddex arin buu kaga digay oo wuxuu yiraahdaa ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada wardigiina iyo irdigiina iyo xoolihiina korkiina xaraan ayuu idinka yahay inaad isdhacdaan inaad isdishaan irdigaad isku xad gudubtaan xaraan ayuu korkiina idinka yahay marka waxaan laga baahan yahay walaalayaal midaas waa in la xoojiyaa islaamnimada waa in lagu dadaalaa qof waxa loo baahan yahay inuu wax ku qiimeeyo diin waa inuu wax ku qiimeeyaa islaamnimo waa inuu wax ku qiimeeyaa iimaan waa inuu wax ku qiimeeyaa kelmadani tawxiidku waa inuu wax ku qiimeeyaa midaas ayaa dhamaanteena laga doonayaa marka walaalayaal bariyahan waad ogeydeen waxa wadanka ka dhacay isbuuca la soo dhaafay imidkii ka sii horeeyay waxa wadanka ka dhacay waa la wada yaqaanaa tusaalaha u soo qaadan duladka Kismaayo waxa ka dhacay waa dhacdo aad iyo aad laga xanuunsado waa dhacdo aad iyo aad u foolxun laba qabiilo isdagaashay labada qabiil waa laba qabiilo muslimiin ah waa laba qabiilo Soomaaliyeed markaas waxaad arkaysaa way iscunayaan way isdilayaan way isbaabiyeen reer waxa lagu gaaray dilkii in lagu faantimo oo qof walba feeraha iyo xabadkiisa inuu kuntunto arinkii way si laba laabmatay reer waxa la soo gaarayba qofka asigoo ninka qabiil hebel uu ka soo jeeda asigoo bireenaya asigoo gowracaya asigoo dilaya in Facebook la soo dhigo in YouTube ki la soo dhigo oo waxaasi uu noqdo wax lagu sheekaysto wax laga yaqiinsado wax lagu faana ay dadka qaarkii ay ka dhigteen sidoo kale waxa taqaantaan dhacdadii sidoo kale iyadana ka dhacday halka iyo Ginsoom ay ka dhacday oo labada beela meesha degnaa oo walaalaha ah
ay muslimiinta ah ay ayagana islaayeen ayagana isbaabi'iyeen oo intaasoo ruux la iska kala dilay iyo dhacdadii ugu xanuun badneed oo ugu dambaysay isbuucan gudeedii ay dhacday wixii ka dhacay walaweyn ama daafeed sida loo yaqaanaba waxa ka dhacay xanuunka ka dhacay waa wax laga yaqiinsado qof muslim ah arrinkaasi kuma faraxayo maanta in sidar ruux la dilo oo maxali qoorta laga gowraco oo maxali indhahooda la soo saaro bal ka sii daran xubinkii taranka in laga jara oo afkii loo geliya oo Facebook la soo dhigo waa wax laga yaqiinsada sidoo kale waxa laga yaqiinsada ah in asigana dadkii kale ayagana ay sameeyaan xadgudub qof bari ayagana inay soo qabtaan inay ayagana ay dilaan ay gubaan ayagana Facebook ay soo dhigaan waa shay laga yaqiinsada way war waxaas islaamnimada ma qabo war haddaan nahay dad muslimiin haddii aan nahay war waxaana laga baahan yahay war diinta islaamka hala barto lianna qofka markuu diinta islaamka uu barto wuxuu fahmayaa walaalkaaga muslimka xuquuqa kugu leeyahay ayaad garanaysaa waa in la iska ilaaliyaa jariimada waa in la iska ilaaliyaa xadgudubku waa in la iska ilaaliyaa dhacdooyinka noocaasi ana wuxuu ku salaysan yahay aana qabiil ayuu ku salaysan yahay war maanta waxa Soomaali baabiiyay wax kale ma aha waa qabyaalad iyo cadaalad dara waxa Soomaali baabiiyay oo na burburiyay ilaa hadana ay u dhislaatahay waa waxa weeye waa cadaalad dara iyo qabyaalad weey marka maxaana la gudboo mar war qabyaalada wax fiican ma aha qabyaalada war wax fiican ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu leeyahay fa idha nufiqa fi as-sur fala ansaba baynahum yawma idhin wala yatasaalun war maalinta qiyaamaha hadii la tago oo bunka la afuufo qabiilkaaga wax ma ku taraayo adeerkaaga wax ma ku taraayo hooyadaada wax ku tirimayso nin walba shanigiisi amalku sameeyay ayuu ku mashquulsan yahay ilaahay muxuu fala ansaba baynahum wax nasabnimo ah dhaxdoodii ma ahan nasabku waa adduunku weeye maanta waxaad arkaysaa dadkii waxa isku laana qabyaalad nasab baa la isku dilayaa waa la isku xadgudbayaa midaasna waa mid sharciga islaamka waa mid xaaraan ka ah weey midaas ma banaana sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay dadka maanta qabiil ahaan isku jeclaanaya oo qabyaalad ahaan isku bahaysanaya maalinta qiyaamaha waxay isku noqonayaan dad ayaga dhaxdooda cadow isku ah dad ayaga dhaxdooda iscuna dad ayaga dhaxdooda islaaya dad ayaga dhaxdooda ismaabiya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu qaarkooda qaarkii kale ayuu wuxuu ku noqonayaa cadow ayuu ku noqonayaa waa dadka markii adduunkii joogay qabyaalad isku gurman jiray qabyaalad isku qabsan jiray ila ghayri dhalik sidoo kale waa inaan ogaanaa war qof muslim ah kelmadda ku dhawaaqay wadhigiisi xaraam bay ka tahay dhigiisi xaraam bay ka tahay inaad ku xadgudubto xaraam bay ka tahay nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam muxuu leeyahay sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr iska daayay dilka iska badaayay qof muslim oo la caayo waxa loogu baxa ilaahay taacadi ayaa loogu baxa faasiqnimo weey qof muslim oo la dilo waa waxa weey waa shay kufri gaalnimo ah weey waana kufr al-asghar weey sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam markii la weydii war muslim yaa la yiraahdaa nabiga wuxuu yiraahday al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi muslim waxa la yiraahdaa waa qofka dadka muslimiinta ay kaga nabad galaan arabkiisa iyo gacantiisa ay kaga nabad galaan marka maxaa laga doonayo waxa laga doon dadka muslimiinta waa inaan arabkan ka ilaalsanaa dadka muslimiinta waa inaan ka ilaalinaa gacanteena waa inaan ka ilaalinaa sidoo kale waxyaalaha loogu baahan waxa kamid ah war dadka labada beelood oo isdagaalay oo sida isku xadgudbay sida wax iska kala dileen war meeshii loo baahnaa in heshiis la dhaxdhigo oo wanaag laga shaqaysiyo waxaad arkaysaa qolo kale ayaa wax sii kicinaysa qolo kale ayaa wax ka sii riixaysa war sidaan baa leedin ku sameey ka argusada qoladii kale waxa la war sidaan baa leedin ku sameey ka argusada meeshii loo baahnaa dabkii in la damiyo waxa soo baxaya dad shayaadiin ah oo dabkii soo hirinayo oo dabkii sii kicinayo oo labada beelad iyo labada qabiilo isku duulay oo isdagaalay oo isbaabiyay meeshii heshiis la dhaxdhigi lahaa waxa la sameeynaya in la isku sii diro oo dabkii la sii huriyo midaas ma banaana walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum war walaalina dhaxdooda heshiis iyo wanaag ka shaqaysiin war hadda adiga heshiis aadan ka shaqaysiin karin oo wanaag aadan ka shaqaysiin karin ma faraha aad kala baxdo ina maada qabiil ahaan oo qof aad u difaacdo qof kalena qabiil ahaan kale u sii difaaco war midaas shariicada islaamka waa xaraan waxaan tusaale idin ku soo qabanaya
يعني دل سيديسا سيدو كوهر مرة هذه دل وليسا قبيالة أي كل أحجر إنه دل كاس وسنور مرين دل كاس إنه سنور مرين أنت عدالة أي كده عدالة حما أي كده أحجرت قبيالة أنت كده أحجرته دل كهور مرين مايو ما أنت واحد تصالح إذا كوسا قادنا يا دل كان لقوا مجا عاوي تري دل كاس سنغافور دل كاس سنغافور وجزيرة يروي لكن واحد دجن أنت سو قبائله أو قار كسو جدا تشاينا قار أي كسو جدا هندية قار كسو جدا ماليزيا كسو جدا إلى غير ذلك سنغافور ما أنت وانا قانا ما أنت واحد كم تاي وضمض أجوهر مرسن حاجة نقارة وأنا وطن كفرة وأنا وطن قال لما كسونوي واحد كم تاي وضمض أجوهر مرسن حاجة نقارة وضمض أجوهر مرسن حاجة هي أمنية وضمض أجوهر مرسن حاجة هي نظافة قبيل كاسي أو ماشى دقناتشري وحي أهاين دد إسعون إسبابية وإسعوني شرين وإسدلي شرين وإسبابين شرين لكن مركم مدحوينود وكود دار اللباري لبدا صارين أي تهي وردتك قبيلوين كاسدا إسكوبا بإنيا إن لم يدايو أو وح قبيلات بماشى لقى سارة إن دتك إن لقوا حكم السيع عدالته قفك الظلم يدرمك جالس إن لقوا قبضوا لك إقامة يعني قفك الظلم والظلم قالوا أما الذنب قالوا أم جريمة كدعة قفك جريمة دي دعاء إن لقب صلى الله بط سلا مركم كود ذلك دتك وحين نقدين دجالك ويسكتشوتين وحين نقدين دت استعلاده وحي كود ذلك سلا يدل قاضي يوهر من صلى هاي وأنا دت قالها ولا صع مسلمين معه دين الإسلام معه صان هر مركز ما أنت يسوق قارين سؤالك لا تقص قانون وحنا قانا دلك لقوم مجا والرواندا قبل بيتك أنت تاريخي وحلاقيها ضبط إن إسكولات كيكون يكتن رواندا مركز الله فيري وروحي أهنجرين لبقى بين وآد إسكولاي وإسكو بابي وحال إسكال الدليل أنت صوك منان أو روحه أي الإسكال بابي إنت إسكو يرأسته مجرد حتى روحها لجاري ما مدي أورك له إن يدي خارك لجتشرا أو على شيء تورين لا دحقليه إنه قاعد تنين كم ماشى كل دحدر إلا صابحية إن خارتي لجسي ترى لكن ما أنت محين نقدين وأنا ده الكافرة وهذا الكفر قال لما كوس جنوي ما أنت نوحي لو وضمضة قارة أفريقيا وضمضة أجوهر مرسل أي كم أنت ضبك اللي وضع قبيل حل جايز دجالي شري إسباب إن شري وحين نقدين ضد ولا لا أي وضع نقدين أو إسكالمية أو إشعل أي نقدين وردك قال هذا هذا يسداسي أيهين ورمحان نوديدي أنا قاعد مسلمين إن أنا جنا أرين كاسي أن كود ذلك ورح أوديدي دتك مدحنا النوع أي دتك هجان كنوع هاي والقبيلين كان سيدا إسكوبا بعناية سيدا إسكول عناية إن بحدي هشيس إن كشقيان مثل ما كشقيان حاوديدي دتك هجان كنوع هاي والقفك ظلم جيسة قفك وحدي له قفك وحدة إن لقبت عقابتي سلم مرسية حديدي عدالة الدراحمة وماشى كجرتوي مرك ولا على المركب وحال الجبهة هي والقبيلة وحيدين ترى يسمعها قبيلة وحيدين ترى يسمعها قبيلتنا ملقوها المرة ضلنا هرمركم مجارة عدالة حمنا وحي ترى يسمره هذه قوم هذه لا يساق قوم كي كان لحقر لليدو قال لا صفطة قابتي كان لا يلا بابيو دكي ظلمي جالسي جريمة جالسي إن أيجي محليا الله قصر دنا جريمة عن جالسني الله يريساق وعدالة درا الله قد أقمو مداسي بابا صومالي ولي قد كما بابيس ولي قد كبر حماس أنت عدالة حما أيجرت أنت قبيلة أيجرت أي أمدا يسعون أيان أمدا يسبابين أيان نحن يسلان أيان قبيلة لا يسكعون أيان واحد أردت لما قبل على كفصل بالينا لما قبل يرير أي على كفصل خارج وحي لين واحد الله كفصل واحد أنا قبل بحرير إلى الهيت أنا قبل حرير إلى الهيت لما قبل بريئة أو واحد عن جيسنين أو محل دباطة أنا الصمين أو إسكير يرى ده هذا ويرتاي إن ما أنت الله كفصل يعني إذا اللقوا حمانية لبدا سيجد قبيل كي كسو جدان إذا اللقوا حمانية لقوا مقعد دلايا وعمل شيء حنوي مرق ولا للوحى أنا الجنب هنيجي لما أنت نضال صومالي أنا وإنا ويستجنا إن أول لا دجالنا قبيلة وإن لا دجالنا قبيلة وإن لا دجالنا قبيلة الشيء حلما نكا ما تشيكنا إنه الله داريها وما فينا قبيلة كان أصيغنا هو سيء أما نكا دحدحات ككجرة أصيغنا وما فينا مرق محل الجنب هنيجي وردت مسلمين بانهاي دين الإسلام أيام كذا قلنا وردين تاني الإسلام كوحينا أمر إنسان من نما
waxayna amraysaa walaaltinimo inaan isku walaasano diinta islaamka war intaasi mana laga waayo haddaan Soomaali aan nahay maad waana sii dara wadan walba markaa tagto magaca Soomaaliyeed waa lagu sheekaystaa waxaa laga dhigaa Soomaalida inay yihiin dad oo maxalliinada waraaba inay yihiin dad wuxuush inay yihiin ayaa laga dhigtaa wadanka meel walba tag Yemen baa joog waa lagu sheekaysaa Sacuudiga tagaysa waa lagu sheekaysanaya ina war wax ku anfacay waa dalkaaga war dadka adiga alla noo shay waa dadkaaga waa dad muslimiin waa dad Soomaaliyeed ma ka nabad gali karaan war diinta islaamka miyaan ku dadaali karin marka intaas walaalna laga baahan yahay waa inaan iska daagna qabyaaladu waa inaan iska daalna waa inaan iska ilaalna odayaasha dhaqamaadka ayagana oo qabyaaladu u booday waa inay ilaahay ka cabsadaan qabiilkooda iyo talkooda yeelan baabiin yeelan dagaal u horseedin waxaas waa wax fool xun weey waa in la iska ilaaliyaa marka dhalinyarta waxaan leenahay war dadkii oo duqooy waa la gartayba laakiin idinka dhalinyartii maanta wadanka joogay baatiin dadka maxalliga mustaqbalka la sugay wadankan inuu wax u qabto waa idinka maxal idinka baahan yahay war midnimada ku dadaala qabyaalada iska daaya war nin qabiilka ka soo jaado nabiga sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wuxuu yiraahday la'ana Allahu man awa muhditha yani Allah hal la'nado naxariis ka fogeeye ninkii soo dhaweeyay ama difaaca min jariima iyo dulmigeesi laakiin maanta waxa la qana boqolaal in adeerkayga weeye lama fogeyn karo waa sidaani weeye waxa ku tarta adiga sidaani weeye waxa ku tarta marka ilaahi subhanahu wa ta'ala ka cabsano sallu ala sayyid al-bashar kama amarakum Allah azza wa jalla inna Allah wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة